kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey howlgallada ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. sawiradaas aad u jeedaan waa sawiradii ugu dambeysay goobaha ay maanta la wareegeen ciidanka Puntland iyadoo guul taariikhi ah oo guulihii horeba ka waaweyn ay soo bandhigeen ciidamadu. maanta ciidanku waxay la wareegeen saldhigii hubka kaydka u ahaa hubka kaydka uu yaalay kooxda khawaarijta Daesh. waxay sidoo kale la wareegeen xaruntii saadka dhan ee ciidankooda ayaa la wareegeen ciidamada Puntland. waxay la wareegeen xaruntii dayactirka gaadiidka ama gawaadhida. waxay sidoo kale la wareegeen xaruntii samaysinka qaraxyada. waxay sidoo kale la wareegeen saldhigii macluumaadka ciidamada. ila ciidan markuu meel uu ciidan dhisan yahay waxaa jira saldhig macluumaadkooda isgaarsiintooda waxa weeye laga droonkooda waxa weeye diyaaradaha droonka oo kaleeto laga dira bay leeyihiin. saldhigii dhanaaba gacanta lagu dhigay. macluumaadka ay kooxda isticmaalayso dhan baa gacanta lagu dhigay. qacda ayaana maanta laga geliyey. khasaare lixaad leh ayaa la gaarsiiyey. guulo waaweyn bay ciidanku soo bandhigeen. waan dul istaagi doonaa. waxaan sidoo kaleeto ayadana aan dul istaagi doonaa dowladda federaalka oo mar kale war ka soo saartay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo ka hadlay howlgalladaasi ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Puntland iyo sida iyagu ay u arkaan ayaan iyadana dul istaagi doonaa. waxaan dhanka kaleeto iyadana mid iyo labo aan ka dul istaagi doonaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee maamulka Puntland ay ku yeesheen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyo qodobada ka soo baxay ayaan iyadana dul istaagi doonaa. waxaan dhanka kaleeto mid iyo labo aan ka dul istaagi doonaa dowladii Puntland oo gebi ahaanba ka soo guurtay Garowe isla markaana u soo guurtay magaalada Boosaaso. haddaba magaalada Boosaaso maxay tahay sababta loogu soo guuray? miyaan shaqada iyadoo Garowe la degan yahay lagu qaban karin? maxaa loogu soo magaalada Boosaaso macal madaxweynihii loogu soo raray? iyadana waan dul istaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownee weli waxaa socdo howlgallada cidhitirka kooxda khawaarijta Daesh ee buuraleyda gobolka Bari ama buuraha gobolka Bari. ciidanka maamul goboleedka Puntland howlgallo istaba jooga ayay dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay ka wadeen buurahaasi. guulo hore oo taariikhi ah inay gaadheen waa kan muuqaaladeeni hore aan inugu soo gudbiyay. muuqaaladii ugu dambeeyay ee ay ciidamadu la wadaageen ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto xogihii ugu dambeeyay ee ay soo gudbiyeen ee warbaahinta ay la wadaageen ayaa muujinaya guulo taariikhi ah oo ciidanku ay soo bandhigeen oo ay ka gaadheen howlgalkii maanta ka dhacay buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. 4 saldhig oo waaweyn oo muhiim u ahaa kooxda ayay gacanta ku dhigeen. waxaa ka mid ah saldhigyada ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Puntland ay maanta soo bandhigeen saldhigii hubka kaydka ee kooxda khawaarijta, saldhigii hub dayactirka gawaarida, saldhigii samaynta qaraxyada iyo saldhigii macluumaadka ciidamada iyo isgaarsiintu ay yaaleen. 4taasi saldhig oo muhiim ahaa ayaa gacanta lagaga dhigay kooxda. waxaa sidoo kaleeto intaasi sii dheer xaruntii kaydka raashinka ciidanka waxa weeye argagixisada iyadana gacanta lagu dhigay oo ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Puntland ee mas'uuliyiinta maalmihii ugu dambeeyayba baacsanayay kooxdaasi ayaa gacanta ku dhigay. ilaa 4 ilaa 5 saldhig oo waaweyn ayaa ciidanka maanta u soo gacan gashay oo ay gacanta ku dhigeen. waxaa sidoo kaleeto gacanta lagu dhigay qalab badan oo muhiim ah sida hadda droono ay meesha kaga tageen oo kuwa qaraxyada xumbaariya kuwa macluumaadka waxa weeye hub casriya macluumaad kaleeto sirdoon oo goobaha ay xidhiidhyada la sameeyaan iyo meelaha ay xogaha ka waxayaan iyo dadkii la shaqaynayayba xog fara badan ayaa gacanta lagu dhigay. howlgalku weli waa socdaa. ciidanku waxay sheegeen saraakiisha weliba hogaaminaysa waxay ummadda Soomaaliyeed ee dhaqaaqa halkaasi ka socda la socotay ay u sheegeen in maalmaha ugu soo aadan laga faraxalan doono. si istaba jooga ayayna ciidanku oo waxa weeye istaba jooga ayay maalmihii ugu dambeeyay guulo waaweyn ay u soo hooyeen. welina waa socdaa oo howlgalku waa socdaa. buuraha Calmiskaad markii la fiiriyo la qiimeeyo inta badan ba gacanta lagu dhigay kooxda gacanta lagaga dhigay kooxda oo gabi ahaanba waa la soo gabagabeeyay. dhul hadda badani ma harin. meelo yar oo fara ku tirisa ayaa dhiman oo kaliya
oo haddana hawshoodu ay socotaan dowladda puntland markii la yidhaahdo maamul ahaan waxba kama hadhin oo dowladdu way soo guurtay oo magaalada boosaaso ayay soo degtay qofi kama hadhin madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni golihiisii wasiiradaha iyo sidoo kaleeto baarlamaankii xubnihii agaasinadii iyo shaqaalihii oo dhanba waxaa dhihi karaa madaxdii oo dhanba markii laga reebo shaqaale hoosaadkiiya laga reebo iyo agaasino laga reebo magaalada boosaasay soo degeen intii howlgalku u bilowday iyo ilaa haddana boosaasaa la joogaa oo halkaasaa laga hagayaa dagaalka haddaba arrimaha la isweydiin ba waxay tahay boosaaso maxaa loogu soo guray miyaan garowo howlgalkan ciribtirka kooxda buuraleyda laga wado miyaan garowo iyadoo la jooga la wadi karin maya waxay madaxdu u soo dhowaadeen howlgalkaasi boosaaso waa meesha laga xukumo buurahan waa meesha buurahan waxaa weeye ugu dhoweeye magaalada ugu dhow waana magaalo madaxdii labaad waana magaalo ganacsiyeedkii madaxtooyeyna puntland ka diyaarsato mar horaaba waxaan laga baaraadegayba oo madaxtooye dhan baaba ka dhisan magaalada boosaaso marka waxaa laga hagayaa macluumaadka ciidamada howlgalka ciidamada iyo sidoo kaleeto ciribtirka kooxdaasi dagaaladaasi ka socda buuraleyda gobolka bari ayaa magaalada boosaaso laga hagayaa golaha wasiiradu maanta waxay ku shireen magaalada boosaaso war murtiyeed bay ka soo saareen waxa ayna bogaadiyeen guulaha waaweyn ee taariikhiga ee ciidanka maamul goboleedka puntland iyo daraawiishta puntland ay soo hoyiyeen waxay sheegeen doorka ay ka qaateen dadka shacabka garab istaagga ay u muujiyeen ciidamada oo weliba ay uga mahad celiyeen dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay puntland ay ka kooban tahay oo garab istaag istaba jooga u muujiyey ciidanka howlgalka kaga jira buuraleyda gobolka bari ee puntland si kastaba howlgalku weli waa socdaa puntland go-aankan ay qaadatay ee lagaga xoreynayo deegaanadeeda kooxaha khawaarijta deegaanada ay kaga sugayen lagaga xoreynayo waa mid hadda u socda si habsami leh dowladda federaalku war bay ka soo saartay isdaba jooga waxaan ogsooneyd in ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay madaxweynaha naftigiisa uu ka hadlay dhammaantood ay bogaadiyeen guulaha taariikhigee la gaadhay waxaa sidoo kaleeto maanta iyadana ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed taliye odowaa oo u qudbeynaya ciidamo ka tirsan ciidanka xoogga soomaaliyeed waxa uu bogaadiyey oo uu weliba uu aad iyo aad ugu noqnoqday hadalkiisa ugu celceliyey guulaha taariikhiga ee ciidanka daraawiishta maamul goboleedka puntland ay halkaasi ka gaadheen waxa uu sheegay in puntland sida hadda ay wax ku wada hadday ku socdaan in muddo kooban lagu soo afjari doono si kastaba puntland howlgalkan hadda ay wado ee ummadii soomaaliyeed oo dhan ay bogaadinayso ee dowladdii federaalka oo iyadu xataa eedan loo jeedinayay ay hadda saaxadda bogaadinta iyo dhiirigelinta ay kusoo biirtay si isdabajoogana ay uga hadlayaan waxa uu ku socdaa si habsami leh waxaa aad iyo aad la isku weydiinayaa war puntland haddayba awoodan leedahay oo maalmo kooban kooxahan kusoo afjari karto maxay horay u qaadi weyday horay maxaa la dhowranayey horay maxaa la fiirsanayey maxaa loo hagranayey oo dhulkan loo hagranayey baa la leeyahy oo aad la isku weydiinayaa madaxweynahan puntland ee hadda talada haya waa markii labaad oo dib loo doorto sidaas awgeed wuxuu rabaa in wax muuqda uu ka tago iyadoo puntland ay xor tahay argagixiso ay ku sugnayd deegaanada puntland oo dhan la isku soconayo meel walba amni tahay bustaha meeshaad rabtaa dhigan karto inuu kursigaasi u baneeyo oo isagu weliba rabaa inuu u tartamo madaxweynaha federaalku rabaa inuu noqdo oo saciid deni halkaasu u socdaa sidaas awgeed cashiruu rabaa inuu ka tago uu dhigo kooxdan khawaarijtana hadda sida hadda muuqata maalmo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa oo meeshan hadda waxa ku socda ee halaag iyo hooga ku dhacay markii laga qiimeeyo maba sii joogi doonaan oo hadda naftirkeeda inta badan saldhigyada laga qabsanayo markay madaafiicdu ku hoobato gantaallo lala dhaco way cararayaan ciidanku waa soo gelayaan inta hadda saldhig ee la qabtay ilaa iyo waxaa la qabtay 40 goobood ka badan ayaa laga soo qabtay kooxdan khawaarijta markii la isku tiray meelaha ay joogeen inta deegaan ee laga soo qabtay hadda khasaaraha iyadoo weliba uu yar yahay aad iyo aad u yar u xadadan yahay sida saraakiishuba ay sheegeen ayaa goobahaasi la soo qabtay inta kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo khasaare jirin dhimasho jirin dhaawac jirin ciidanku ay bad qabaan inay la wareegi doonaan haddana waaba lagu daba jiraayo waxyaabahay usii cararayaan iyo calmadoobe halkaasay usii cararayaan oo ciidanka ay kusii daba jiraan daawadayaal waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa anigoo santaaga ayaa inala socodsiin doonaa halkaad naga daawanaysaana waa Warsama Media.